waxa ugu weyn ee nagu soo fool leh dunida aynu maanta joogno ayaa ah diyaarado aan duuliye lahayn balse waxaa jira saddex caqabadood oo hortaagan in la soo saaro diyaarado rakaab ah oo aan duuliye lahayn shirkadda diyaaradaha samaysa ee Airbus ayaa bandhiga diyaaradaha ee Paris ee sanadkan ka sheegtay in loo baahan yahay 800,000 oo duuliyaal ah 20 sano ee soo socda tiradaasi oo ay adag tahay in la helo sidaas darteedna ay muhiim tahay in la helo diyaarado aan duuliye lahayn saddexda arrin ee ugu waaweyn waxa ugu horeeya siyaasadda markasta oo la gaaro horumar xagga tiknoolajiyada ah waxa ka dhashay dad guuleysta iyo kuwa guul dareysto taasi waxa loola jeedaa in dadka shaqooyinka u abuurmayaan iyo kuwa shaqooyinka weynayo isbeddelka dhacay awgii ayna horseedayso xaalad aan lagu faraxsanaan karin haddii diyaarad duuliye la'aan ah la soo saaro taasi waxa ay ka dhigan tahay in ay shaqooyinkooda weynayaan kumanaan duuliyaal ah kuwaasi oo hadda u kala goosho dunida dacaladeeda duuliyaasha caalamku waxa ay leeyihiin ururo xoog badan oo ay adag tahay in dhanka siyaasadda lagu weeciyo duuliyaasha waxa ay garab ka haystaan ururada shaqaalaha ee awoodda badan ee caalamka ku baahsan kuwaasi oo xagga gorgortanka iyo galaangalka siyaasadeed u isticmaala in dhankooda ay u weeciyaan go'aanada waaweyn ee caalamka ka dhaco tusaale ahaan ururka duuliyaasha ee Airline Pilots Association waxa uu matalaa ilaa 63,000 oo duuliyaal ah qodobka labaad ee xusidda mudan ayaa ah caymiska diyaaradaha raqiis ma ahan tusaale ahaan diyaaradda nooceedu yahay Boeing 737 oo ah diyaarad yar waxa uu qiimaheedu kor u dhaafayaa $100,000 shirkadda diyaaradaha ee American Airlines hal sano waxa ay isticmaashaa lacag dhan $30 bilyan si uun loo dayactiro gaadiid hore ugu yiilay lama oga lacagta rasmiga ah ee caymiska ku baxda sababtoo ah shirkadaha caymisku waxa ay ilaashadaan sirtooda ganacsiga balse waxaa la sheegay in sanadkiiba balaayiin dollar ay ku baxdo lacagaha caymiska ee loo sameeyo diyaaradaha ugu dambeyn mushaarka ayaa muhiim ah in la ogaado duuliyaasha waxa ay qaataan mushaarka ugu badan dunida iyaga oo qaata in ka badan dakhliga soo gala diyaaradaha ay duuliyaan tusaale ahaan duuliyaasha qaarkood waxa ay qaataan sanadkiiba $300,000 taasi oo jirta ayaa waxa haddana gabaabsi ku jira duuliyaasha sida aan kor ku soo sheegnay dabcan haddii meesha laga saaro duuliyaasha waxa isdhimaya qarashka ka baxa shirkadaha diyaaradaha balse taasi micnaheedu ma ahan inaysan bini'aadam hagi karin diyaarad aan duuliye lahayn dooda ugu xoog badan ayaa ah in aysan jirin wax bedeli kara dareenka iyo feejignaanta bini'aadamka haddaba daawadi adigu ma raaci lahayd ama ma adeegsan lahayd diyaarad rakaab ah oo aan duuliye lahayn